الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي wanaagsan markale daawadayaal. haddii aad ka mid tahay dadkii hore noo daawaday oo channelka subscribe saaray mahad ka gaarto. haddii aadan weli subscribe saarin ama uu hadda kugu cusub yahay aad daawanayso markii kugu horeysay, waxaan rajeynayaa muuqaalkan kadib markii aad daawato inaad subscribe noo saari doonto insha Allah. maanta waxaan ka hadlaynaa 10 shay ama waxyaabood uu qofku u baahan yahay intuusan qorsheyn safar dibadda ah internationally. 10ka waxyaalood way ku anfacayaan inta aad safarka gelin ka hor, qaarna waxay ku anfacayaan inta aad ku guda jirto safarkaaga, qaarna safarka kadib markuu kuu dhamaado oo meeshii aad u socotay aad gaarto. qodobka koowaad oo aan maanta ka hadlayno waa xaaladda COVID-19. marka hore waxaa laga baahan yahay inta aadan tigi jaran safar aad qorsheyn inaad fiiriso waddanka u socotid xaaladiisa corona ee xanuunkan faafaha daran. waa inaad iska hubisaa inaad u baahan tahay tallaal. sidoo kale waa inaad hubisaa tallaalka nooca aad haysato. wadamada qaarkood tallaalo ay xaqiijiyeen oo ay dowladoodu sharciyeysay baa jira iyo qaar ay diidan yihiin. wadamada qaarkood waxay ogol yihiin qofka hadduu hadda ka hor xanuunka coronavirus ugu dhacay hal mar isla markaana hal tallaal haysto inuu sidaas uu tallaalkiisi ku dhamaystay. qaarkoodna waxay kugu khasbiyaan inaad 2 tallaal haysato. sidoo kale waa inaad la socotaa xaaladda la xiriirta karantiilka. waddanka markaad tagto ma karantiil baa la gelayaa, yaa karantiil gelaya, waa meeqa maalmood. wadamada qaarkood dadku waxay ku khasbaan intaysa imaan ka hor inay haystaan tijaabo oo iska soo baareen xanuunka COVID-19 xataa hadduu tallaal qofku haysto 2 xababa uu qaatay. kaas waa qodobka koowaad. qodobka labaad waxa weeye waa inaad jeekinto xilliga uu dhacayo baasaboorkaaga. qodobkan waa qodob aad u muhiim ah. wadamada intooda badan waxay ogol yihiin baasaboorkaaga inuu shaqaynayo marka aad safar ku tagto waddankooda ugu yaraan 6 bilood. 6 bilood ka yar haddii xilliga dhicitaankiisu ay ka harsan tahay waxaa laga yaabaa inay kuu diidaan dalku galka, ama markii aad waddankooda tagto borderkooda ama aeroboortkooda ay dib ku soo celiyaan. marka haddii baasaboorkaagu ay 6 bilood ama wax ka yar ay mataqaanaa ay ka dhiman yihiin, waxaa ku waajibay inaad baasaboor cusub xariisato. qodobka saddexaad waa isdiiwaangelin inaad samayso. waa inaad iska diiwaangelisaa safaaradda waddankaagu uu ku leeyahay waddanka u socoto. badanaa waxay sameeyaan inaad qaab email ah aad isku diiwaangeliso magacaaga, goorta imaanayso iyo meesha imaanayso iyo inta maalmood aad joogayso baad u gudbinaysaa safaaradda, ama telefoon ba kula xiriiraysa ayaga ka qoraya, ama qaab online ah bay u sameeyeen oo qaab online ah ayaa isku diiwaangelinaysaa. marka arrintan maxay kaa saacidaysaa? waxay kaa saacidaysaa haddii waddankaas uu dhib ka dhaco, ha ahaato dhibaatooyin la xiriira caafimaad darro iyo cudurro, dhibaatooyin natural disaster kale sida tusaale ahaan dhul gariir, tuufaano iyo wixii la mid ah, ama xaalad amni darro waddanka ay kusoo kororto in lagula soo xiriiro si lagu caawiyo. iyo haddii adiga si gaar ah ay dhib kugu dhacdo qaabka ay safaaradda ku caawin lahayd, waayo waa inay og tahay macluumaadka oo dhan inay haysaa sida ku caawiso. qodobka afraad oo asna muhiimadiisa wata waxa weeye waa inaad ogaato inaad u baahan tahay travel insurance haddii aad maqnaanayso oo safarka ku maqnaanayso muddo 3 bilood ah ama wixii ka badan. travel insurance waxaa ku jira caafimaadka qofka si adeega caafimaad lagugu fidiyo markaad waddan kale aad tagto aad ku xanuunsato. annagoo og adeegyada caafimaadku inta badan inuu qaali yahay, waa inaad haysataa travel insurance. qodobka shanaad ama talada shanaad ee aan ku siinaya waxa weeye haddii aad tahay qof xanuunsan oo xanuun la nool, xanuunada sida sokorta oo kale, dhiig karka iyo wixii la mid ah, waxaa ku khasban tahay inaad mar walba daawo haysato, daawadaasi qaadato si marka lagugu ogolaado
inaad la safarto daawadaada waa inaad haysataa caddaymo xaqiijinaya inaad tahay qof xanuunsan, waayo inta badan aylaboorada looma ogola in qofku uu la safro daawooyinka iyo wixii lamid ah. waa inay tahay daawo xadidan, islamarkaana waa inaad haysataa caddayn sheegaysa inaad xanuunsan tahay si lagugu ogolaado inaad la safrto daawadaada. qodobka 6, ha qaadanin lacag kaash ah oo gaaraysa $10,000 iyo wixii ka badan haddii aadan caddayn karin qaabka ay kugu soo gashay. inta badan dowladaha waxay ogol yihiin inuu qofka lacag kaash u haysto, laakiin kaashka aad haysato waa inay ka yaraataa lacagta aan kuu sheegay $10,000, wadamada qaarkood $9,000. waayo waxaa la diidayaa oo ay la dagaalamayaan waxa weeye lacagaha sida sharci darrada ah kusoo gala waddanka. marka waxay ku weydiin karaan qolyaha staffka ama airport ka shaqeeya in aad declaring ku samayso, caddayso qaabka ay lacagta kusoo gashay iyo ujeeddada aad lacagta u wadato. laakiin waxaa mar walba ku fiican in ay lacagtaada kugu jirto akoonkaaga bangigaaga. qodobka 7 waa qodob digniin ah. Do not leave your bag unattended. oo macnaheedu yahay boorsooyinkaaga aylaboorka gudihiisa ha kaga dhex tegin. meel walba oo aad tagayso waa inay kula socotaa. xataa haddii aad suuliga u baahan tahay inaad gasho waa inaad la gashaa. haddii aad ka tagto waxaa dhici karta oo ay xaq u leeyihiin qolyaha security-ga in boorsadaada ay meesha ka qaadaan oo meel kale la geeyo, oo hadhow boorsadaada raadinteeda ay kugu qaadato waqti. tan labaadna, haddii aad ka tegayso waa inaad kaga tagtaa qof aad 100% ku kalsoon tahay. qolyaha security-gu xaq buu u leeyihiin inay ku weydiiyaan ma ka tagtay boorsadaada aylaboorka gudihiisa. haddaa haa dhahdo baaritaan dheer bay samaynayaan. mar walbaba waxa weeye waxa ogaataa for the security reason inay su'aalaha ku weydiinayaan. waayo waxaa jirta in badan dadka boorsooyinkooda lagu qariyo waxyaalo sharci darro ah oo hadhow adiga qofkii boorsada watay ay dhibaato kaaga timaado. qodobka 8 ama talada 8 oo u baahan tahay inta aad safar gelin waxa weeye, haddii aad doonayso inaad gaari ka kiraysato ama sideedaba aad gaari wado marka aad waddanka aad u socotay aad tagto, waa inaad haysataa documenti loo yaqaano International Driving Permit, EDP baa loo soo gaabiyaa. documentigaas waxaa ku qoran inaad gaari wadi karto oo caddayn ah. islamarkaana waxaa ku qoran 11 luqadood oo inta badan luqadaha la isticmaala ah, si ay u gartaan qolyaha baabuurka kaa kireynaysa iyo xataa booliska waddankaas. haddii mar control aad kusoo beeganto ay 11 luqadood mid ka mid ah list ay u fahmaan inaad gaari wadi karto, inaadan isticmaalin ATM-yada ama mashiinada lacagaha lagala baxo ee ku yaala aylaboorka gudihiisa waddanka u socoto. sababtoo ah sarfaceka iyo lacagaha ay kugu charge-gareynayaan wuu ka badan yahay kan magaalada gudaheeda. tusaale ahaan waxaad rabtaa inaad $100 kala soo baxdo mashiinka markaad Turkiga oo kale u socotaa. markaad mashiinka lacagta kala soo baxdo waxaa laga yaabaa $100 inuu suuqa uu ka yahay 800 oo lacagta waddanka Turkiga, laakiin mashiinka marka aad kala baxayso lagugu charge-gareeyo lacag gaaraysa 1,000 euro. waxa weeye marka lacag 200 oo liiro oo dheeri ah baa ku saaran. qodobka ama talada ugu dambaysa waxa weeye isticmaal gaadiidka dadweynaha, public transportation. gaadiidka dadweynaha waa basaska iyo tareemada iyo wixii lamid ah. isticmaalkoodu waxay kuu fududeynayaan in aad meelaha u baahan tahay aad si fudud oo degdega ku tagto, iyo in ay ku safgarayaan dhaqaalo, lacag badan ay halkaas kugu baqato. inta badanna gaadiidka dadweynaha waxay sameeyaan tigidho uu qofku discount loo sameynayo, oo markaas hadduu bil joogayo, hadduu 2 bilood joogayo,
uu ku raaci karo sida tusaale ahaan baska oo kale. intaa maalin kasta aad tigidh jaran lahayd waxaa laga yaabaa hal maalin gudaheed inaad 4 mar u baahato inaad isticmaasho gaadiidka dadweynaha. marka 4ta jeerba meelaha qaarkood ay kala dhaadheer yihiin inaad tigidh aad jarato oo lacag bixiso muhiim ah, waa khasaaro. marka waxaa ku fiican inaad hal mar aad wada jarato muddo bil ah inta aad joogayso. lacag badan way kuu safgaraysmaysaa, waqti badan way kuu safgaraysmayaa. daawadayaal, muuqaalkan oo travel tipska oo aan talooyin ku siinayay waa muuqaalkii 6aad. intaasuu noogu egyahay. intaan muuqaal kale aan ku kulmayno waxaan kaga tegayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.